السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan joognaa Manali magaalada Manali oo magaalada dalxiis oo ku taala dalka India gaar ahaan Himachal Pradesh gobolka la dhaho. Maanta waxaan sameynay activity fara badan saa u jeedaan zipline-kii halka gadaasheeda ka muuqda. Waan sameynay activity kale marna waxaan u soconaa barafkii aan ku soo sameyn doonaa activity kale ay ka mid yihiin skating-kii iyo mataqaanaa in barafka lagu dhex socdo. jawigu aad buu ugu kala kacsan yahay aniga iyo asxaab badan. waa sidoo kale garabkayga taagan Cabdiraxmaan oo ka mid ah dalxiisayaasha maanta yimi Manali. Cabdiraxmaan ku soo dhaw Manali. ما شاء الله وندو يا صاحب horta waa place fiican weeyaan zipline oo kale waxyaalo badan oo kale inoo hadhan yihiin ma aragtay barshuud oo kale ku enjoy gareysay ku raaxaysatay alxamdulillah saaxiib horta aan ku raaxaysay imika inoo dhiman tahay India meelo kale ma tagtay aan ahayn Manali iyo Himachal Pradesh may horta markii hore iska busy waxaan yar hayay laakiin imika fursad u yar helnay ma sha Allah ani walaalahay marka intana in kan badan baan rajeynaa intaasi oo si fiican insha Allah Cabdiraxmaan wuxuu ka mid yahay ardayda Soomaaliyeed ee ku dhaqan ardayda dalka Djibouti ee ku dhaqan dalka Hindiya wuxuu halkan u yimid dalxiis iyo inuu waqti ku qaato aad iyo aad baan Cabdiraxmaan kugu soo dhaweynaynaa Himachal Pradesh iyo Manali iyo Hindiyaba aad iyo aad baan u mahadsantahay asxaabta maxaa leedahay horta asxaabta waxaan leeyahay insha Allah inagna arki doontiin saan u fahnay marka insha Allah ku soo dhawaan doontiin insha Allah ayo mahadsantahay iminkana waxaa garabkayga soo joogsan doontaa Simon Bashir oo ka mid ah ardayda wax ka baratay jaamacadda Punjab ee dalka Hindiya. Simon ku soo dhawo. السلام عليكم Wasalaam. walaal ma dhowahay see u aragtaa maanta maanta maalin aad u wanaagsan baan ku leeyahay buuraha baan joognaa xagee baan joognaa Manali baan joognaa oo waliba qaybta buuraha Manali xagee ku taal wixii ku taala Hindiya Hindiya okay waa qaybta qabow ee Hindiya qaybta qabow ee Hindiya ay ku taalaa halkan waxaan u imaanaynaa activity sameyno waxay noo sheegi doontaa Simon activity-yada ay ka qayb qaadatay ama halkan ay ku samaysay maxaad samaysay activity halka walaal horta waxaan iga dambeeyay waxa weeyaan maaragtay baash la raacayo zipline bandada yani halkaaba laga tuuraya inama buurta kale walaal see dareemaysa markii aad mataqaanaa ku dhex jirtay bisiga ashaad oo dhamaystay aad oo cabsatay soo bisiga aad bay cabsi badan tahay marka horta la hor jooga meesha markaas maaragtay ashaad iyo quraan iyo hada muslim nahay doorta intaan maanta inta suurado daaqrisay bisig garmay walaal tiri sheekar ma matrada marka wallahi waa activity aad u qurux badan markii aan mar raacaysid khalaas aad torniyada ku dagaysaa ma sha Allah sidoo kale waxaan u soconaa meeshii barafka ahayd halkaas aan ku soo sameyn doono maxay activity kala ku soo xannaa halka barafkan maanta aan ugu horeynayso horta asa African oo waliba Eastern East Africa meel kul waliba Djibouti oo kul حبيب النار برداد حبيب النار جيبوتي حبيب النار راح داطينا هذا ما شاء الله مركز هلكا waxaan tagay asxaabta aan Hindiya joogta aan meesha tani baan maxaa fariin u diraysaa والله يا ويش wax badan baan hoos marayaan leeyahay wax badan baa idin dhawan baysi madad leedahay oo idin ka khabaysan idin ka qarsoon oo Hindiya kamid ah waqtigeena ku raaxaysta xilliyada fasaxyada nagula qaatay Himachal Pradesh gaar ahaan magaalada Manali iyo barafka aad iyo aad baa siman u mahadsantahay waa badan walaalkay